Assalaamu calaykum. Maanta casharku wuxuu ka bilaabmin waxaan maanta dhigan doonaa in this lesson we will learn waxaan ku baran doonaa casharkan house vocabulary erayo ka hadli doonaa guriga vocabularygiisa sentences structure qaabka loo dhiso sentenceska iyo describing a house sida guri cashar yaroo ka hadli doonaa qeexista guriga oo laga hadli doono guriga ayaan dhigan doonaa marka vocabulary house erayadan ka hadli doonaa guriga waxaa ka mid a house waa guri, home waa guri laakiin magaalo oo kale ku yaala, bathroom qolka maadhashada, bedroom qolka hurdada, sitting room waa qolka fadhiga isaguna, living room isaguna waa qolka fadhiga isaguna, living room waa fadhiga isaguna, detached house waa guryaha gooni-goonida u yaala ayaa la dhahdaa ee aan keligood meel ku yaala la dhahdaa detached house. Attached house waa guryaha isku dhajisan, guryo fara badan oo meel ku wada yaala la dhahaa attached house. Kitchen waa madbaxa. Garage waa geerashka yare la geliyo baabuurta. Basement waa xagga hoose, qolka hoose weeyaan. Balcony waa balkoonka. Balcony waa balkoonka. Downstairs waxa weeyaan waa kaabadaha hoose. Upstairs waa salaamada sare. Table waxa weeyaan waa miis. Corridor waxa la dhahdaa luuqa yare ee loo sii maro qolalka. Hall waa hoolka. Trees oo wadada la sii maro guriga. Toilet waa suuli. Stairs waa salaamo. Dining room waa qolka fadhiga. Dining table waxa weeyaan miisaska kuraasta cuntada. Roof waa saqafka. Chimney waxa weeyaan halka qiiqu ka baxo. Study room waxaa qolka wax lagu barto. Marka sentence structure waa qaabka sentenceka loo dhigo ayaa ku sii xigi doona. Waa subject, verb iyo object. Subject waa wixii ficilka sameynayay. Verbna waa ficilkii. Objectina waa ficil lagu sameeyay. Tusaale ahaan, we sit in living room waxaan fadhinaa. We sit in living room waxaan fadhinaa qolka fadhiga. Maxaa subject waxa ah we anaga. Verbkuna waxa uu noqonayaa sit. Objectuna wuxuu noqonayaa living room. Tusaale ahaan oo kale, they sleep in bathroom. They baa subjectigiya oo ficilka sameynaya. Verb waa sleepkii oo hurdada. Verb waa ficil lagu sameeyay. Waa sleep waa hurdadii. Wixii ficilka sameynayay. Objectigna bathroom buu noqonayaa. waa ficil lagu sameeyay. Objectiga waa ficil lagu sameeyay. Children play football. Carruurtu waxay ciyaaraysaa kubadda cagta. Subject waxa weeyaan children. Verbna wuxuu noqonayaa play. waa ficil sameeyay wuxuu noqonayaa children carruurtii. Verb ficil sameeyihiina wuxuu noqonayaa wixii ficilka sameynaya carruurtii buu noqonayaa subjectiga. Verbka ficilkiina wuxuu noqonayaa kubaddii buu noqonayaa play. Objectiga ficil lagu sameeyihiina wuxuu noqonayaa football buu noqonayaa. She cleans a kitchen waxay nadiifinaysaa madbaxa. Subject wuxuu noqonayaa ficil sameeyuhu. She buu noqonayaa. Verbna wuxuu noqonayaa ficil lagu sameeyo. wixii ficilka sameynayna clean buu noqonayaa. Objectigna wuxuu noqonayaa kitchen. You learn English waxaad baranaysaa Englishka. You baa ah subjectigii.
verbna waxaa weeyaan learn oo wixii ficilka sameynayay barashadii weeyaan ficilku sameeyihii ficilka wixii sameynayay weeyaan objectiguna waa English marka waxaan kusoo khaltimi doonaa describing my house qeexis yar cashar yar oo ka hadlaya guri la qeexayo I live waxaan ku noonahay a detached house guri gooni ah in a country ee ku yaala magaalada tuulada it's a big aad buu u weyn yahay an all waana duug there's a sitting room wuxuu leeyahay qolal fadhi kitchen buu leeyahay madbakh bathroom buu leeyahay meel lagu maydhu leeyahay a garage wuxuu leeyahay garage downstairs wuxuu leeyahay salaamo hoose and there are stair room waxaanu leeyahay qol wax lagu barto and 3 bathrooms iyo 3 qol oo meydhi ah upstairs iyo salaamo sare buu leeyahay there are also wuxuu leeyahay a garden beer buu leeyahay with a flowers tree oo geedad ku yaalaan I live waxaan la noolahay with my husband xaaskaygii my son wiilkaygii and my daughter iyo inantaydii we have some parties we have same parties too waxaan sidoo kale leenahay xawayaano waxay murabiya sidoo kale goats and cat riyo iyo bisado riyo iyo bisado I love my house waxaan jeclahay gurigayga because maxaa yeelay it's big aad buu u weyahay comfortable waana raaxo it has a lot of light waxaanu leeyahay leerar fara badan a nice view oo laga arko magaalada in countryside oo laga arki karo miiga marka casharku intaa maanta inoo joogo intaan casharkan cashar lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad geliyo